الله unaxariistay waxa caawa magaalada Hargeysa ku geeriyootay fanaanadii caanka ahayd Khatra Daahir Cige oo maalmihii u dambeeyay ku xanuunsaneed magaaladaas. Khatra Daahir Cige waxay ku dhalatay magaalada Hargeysa halkaas oo ay ku barbaartay waxna ku baratay ka hor intii aanay jiidan dabeesha fanka gaar ahaan dhinaca jaceylka oo biyo dhigtay yaraanteedii. sida Khatra ay sheegtay muhibbada fanka waxay la koowsatay koritaankeedii intii ay waxbarashada ku jirtayna waxa ay qaadi jirtay heesaha kala duwan haba ugu badnaadaan heesaha jaceylka. Khatra Daahir Cige waxay si toos ah fanka u bilowday sanadkii 1974 heesteedii ugu horeysay oo ay qaado waxay ahayd hees wadani ah oo uu sameeyay abwaan Cali Ibraahim Iidle. sanadkii 1975 Khatra waxaa loo aqoonsaday fanaanad ka mid ah fanaaniinta hobalada Waaberi iyadoo isla sanadkaas si buuxda uga qayb gashay riwaayado caan ah oo ay ka mid tahay riwaayadii la oran jiray Dab Jaceylka Riwaa. Khatra Daahir waxay aad caan ugu ahayd kuluuqeynta heesaha jaceylka. in badan oo Soomaalida ka mid ahi marka ay fanka ka hadlayaan waxay Khatra ku tilmaamaan boqorada jaceylka. mar la weydiiyay heesteedii u horeysay oo jaceyl ah oo ay qaaday waxa ay sheegtay in ay ahayd hees uu sameeyay la oran jiray abwaan Maxamuud oo reer Hargeysa ah. heestaasi waa heesta caanka ah ee erayadeeda ay ka mid yihiin afka lagama sheegto adigoon jaceyl arag looma uur xumaadee. Allah u naxariisto Khatra Daahir Cige ayaa caawa ku geeriyootay magaalada Hargeysa 48 sano ayayna fanka ku jirtay. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun.